ومحن سودوين واي مدحوينه وانا صاحبكي وانا مدحويني بوتلاند صح marka aniga xildhibaan qarana oo xildhibaan waqooyi bari ayaan halka ku soo dhaweynaya sida xildhibaanada Soomaaliyeed oo dhammaan soo dhaweynayaan iyo kuwa Puntland waa sida shirka dawladdan waa kamid tahay dastuurkana waa difaacaysay maxaa idin qorshaa dad doorasho inaa qabataan doorasho qabo dastuurka waa wadayna waa sida waxaan ka filaynaa doorasho la isla ogol yahay inay ka soo baxdo wax kale miiska saaran ma jiraan ayadana waa la isla ogol yahay waana lagu heshiinaya hadii Allah odaga xasan xoogaa markii hore talax tagay laakiin hadda darbigu ku soo dhacayo intaan madaxweynihii hore la dhihin uu rabaa inuu saxiixa u leeyahay marka natiijo wanaagsan baan ka rajaynaa insha Allah taala in laga wada hadlo dastuurkan shaatigal oo ninka ka dhigto talanayo in laga wada hadlo oo dastuur ummadda Soomaaliyeed ka dhaxeeyo iyagu dastuur waa heshiis bulsho marka dastuurkaasna in meesha lagu joojiyo oo Soomaali markay soo timaado laga wada shaqeeyo iyo in laga wada hadlo doorashadii nooca doorasho la aadayo oo teendada afisyooni nooc doorasho dadba ma ahana wax kale xilligan lagama gaaro doorasho uma mufooda waqtigeed waa la dhaafay marka tii dadbana sida loo qaban lahaa in laga hadlo Soomaaliya mustaqbalka way dadaaleen mas'uuliyadna waa muujiyeen inay diyaar u yihiin in la wada hadlo oo Soomaali amuuraheed miiska lagu dhameeyana waa ka muuqata dabcan dawladana sidaas la mid aan ka rajaynayna madaxweyne xasan sheekh iyo fulintiisaba in Soomaali heshiiso oo dalkan jihad loo bixiyo mandateku waa gabagabo insha Allah anaga rajada aanu qabno way sareysaa laakiin dhinacay wax ku xiran yihiin oo dawladda ah dabcan ficiladii iyo waxyaalihii laga dheehan jiray hadaa aragtay waxa moodaa runtii inaysan laakiin wax isbedeli karaan marka waxaan ugu baaqaynaa madaxda qaranka iyo mas'uuliyiinta meesha yimid dhammaantoodba inay ummadda Soomaaliyeed muujiyaan waxaan soo dhaweynaynaa rajada aan ka qabnay in wax hagaagaan muddo badan bay maqnaayeen Puntland 4 sano ay maqan tahay Jubbaland sanad iyo xoogaa bay maqan tahay Soomaaliyana waxay ku leeyihiin sheer siyaasadeed waa laba dawlad goboleed oo dawlad goboleedada kabiirka oo waaweyna taladoodii la maqnaayeen Soomaaliland hore u maqnayd marka walwal badan oo Soomaali in maalin bacad la goosta ah ayaa ummadda Soomaaliyeed hayay marka in hogaamiyaashoodu yimaadaan madashii samanta bixinta iyo tii mustaqbalka wixii magaciil raha loo baxsho iyo dawladda federaalka isu yimaadaan baan waxaan ka qabnaa rajo fiican